السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصومالي وان سلامي بعد السلام صومالي هنولاتو ها إسرعدو ولا لي أدبا إذن كعلا وايو واحد إذن شيء ولا لي أون ماشان أسرق قالي وحكا لما مقالة مقدشو أنغو إسلام مدحة الصومالية أي حلكو وميرتي مدحة الصومالية أي حلكا وريجيسي مسؤول كستا oo Soomaaliya nabad ha ku sixday magaalada Muqdisho ayaa rag badan oo saaxiibadayo aniga ilamida ku dhinteen meel kale kuma dhiman waxay ku dhinteen meesha murashadiinta degan yihiin iyo aaga mas'uuliyiinta xildhibaanadu ay degan yihiin ayay ku dhinteen rag saaxiibadayo dhintay saakay ma waxa ay cuntanto in la yiraahdo magaalada Muqdisho dawlad kama jirto oo nabad ma ahan miya saakay ay cuntanto ma ay cuntanto midaan idin sheega walaalayaal waxaan xasuusanahay Semberi maadaama aan adinka aan u shaqeynayay in aad nabadgeliyo adinku aad wadadana ku martaan kuna seexataan saaki magaalada Muqdisho wax badan iska bedel runta hadii la sheego waxaan idin tusayaa video aan ku jira aniga oo lambar 4 aan dagaal ugu jirno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo xoreynaya degmada Hodan jarnal dhiga badan oo ka hadlaya markii la wareegay meeshaas anigoo ka taagan midigta ayaa video ayaa isoo qabtay telefishinka qaranka oo wareysanaya isoo qabtay horta video waa in tusa wuxuuna taas tilmaam u yahay wajigayga maanta iyo wajigayga shalay markii aniga aan intaan anoo ka sii da'yar aan dalkayga u shaqeynayay maanta na aan u taaganahay inaan u shaqeeyo oo adinkina nabad ku seexateen aan u taaganahay miya saaka hooyadii Soomaaliyeed oo inay nabad ku seexatay aan rabay aabihii Soomaaliyeed inuu nabad ku seexday aan rabay miya saaka dad mas'uuliyiin shalay ahay ayay ka dhaadhicinayaan in Muqdisho nabad ahayn ya waa nasiib darro walaalayaal waa nasiib darro waxaan kaloo idin sheegaa saaxiibaday maxaan ku iloobaa aan warkiina yaale maxaan ku iloobaa saaxiibaday halka uu hogaaminayay madaxweynaha dawladda federaalka wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidamada diyaaro abaan sidaas daraadeed dagaalku waa soconayaa ma istaagayo inta taako ay ka dhiman tahay dalka Soomaaliya Cabdikariim Yuusuf Dhagabadan abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in shacabkii deganaa guryahan aan loo baahan inay dhaqsi ku soo degdegaan isagoona sheegay in baaritaano dhanka miinooyinka lagu sameyn doono shacabka iyo ummadaba waxaan u sheegaynaa xilligii ay guryahoodii dib ugu soo noqon lahaayeen inay tahay waxaana shacabka uga digaynaa markaan haatana in guryihii miinooyin iyo wax badan ay ku aaseen isla mar ahaantaasna intaan baaritaanka dhammaynayno la miyirsado oo la tirtirsado xanibiyada hore oo jidadka ka xiranna waan ka qaadaynaa guryahoodiina way ku soo noqonayaan ninkii nasiib u yeeshay oo gurigiisa la gaaray dagaaladan ayaa qayb ka ah kuwii ka dhacay degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag maalmihii la soo dhaafay kuwaas oo soo imaanayaan ciidamada dowladda kumeel gaarka ee Soomaaliya iyo kuwa amisan oo dhinaca iyo xarakada al-shabaab Cabduqaadir Cumar Cabdulle Universal TV marka waa soo daawatay videoga madaxdeedii shalay horta khayr Allah idin siiyo waayo dhabarkiina ayaa ilmahay ka khayr badan ku jira waxaad ogaataan haddii annaga xuquuqdanadii aad cunteen oo ni kaga leexanay oo aan ka hadlin oo aan idin dhihi waa qaldantiin oo aan caalamka idin tusin haddana dalkeed u soo dhigateen waa in ka xishiina dalka mana in ka yeelino dalkanaga inaad tilaabo yar inaad u dhibtaan أنا واحد ديار واحد كوفيد السامر كي وجب أنت وحي كترجمة متقانين لكن أنا واقعنا دولة إنه ذلك ليه كترجمة كوفيد عيدا كما كي جبنتها همودين إن إسكوتان وشرعي كانوا هو جالس معي واحد أنا مرك واحد يجي دولة الصومالية هو جالس معي من الديدني نظام كدولي جا واحد جرت ما ضحك والبو ولا صوت شقينا mid aan inta soo istaagnay anagu aan dhaanay baalatay war anaga iyo taagan oo dalkanaga difaacina badanadi gees la xaraas la saxiixay waa soo taagnay saasay tahay dhibaato kasta oo anaga nagu dhacaysa waa u dul qaadan karnaa laakiin dalka
nooma dulqaadan karo dhadhaxaad lagama noqon karo wallaahi oo bilaahi oo tala dhadhaxaad lagama noqon karo midda maxaa cabdullaahi farmaajo idiin sheegaa maxaa cabdullaahi farmaajo waa madaxweynihii dalka Soomaaliya waxaan ogahay shalay oo kale anoo mushaar qaatay ayaa haddana beriyo kale la yeeri asaa mushaar kala qaatay saakuuno kale la yeeri asaa mushaar kala qaatay saddex mushaar waxa goos gareeyay marka ra'iisul wasaare u ahaa waxa goos gareeyay dad asaa ka hooseeyo masuq wada ayaa saddexda jeer kala siimaan hamra la igu soo dhiibay marka inaan marka mushaar iyo waxaas inay daaran tahay masaajidkayguna hamoodinina masaajidkaygu wuxuu daaran yahay shalay waa in la shaqeeyay xabadaan idin gal dhamaca idin aan soo gala waxaan u soo gala dalkan inuu hagaago dalkii adinka aan ku soo dhaweynay dibadda nooga imaada madax noo noqdo waa ogolnahay dibadda nooga imaada madax noo noqdo laakiin weliba xuquuqda madaxweynaha darataan haddiiba adinka aad mas'uuliyiin noqotaan waa idin hoggaansamayna weliba xuquuqdanada cuna laakiin mid ka yeelin dalka naga taaka kamida ka tarsulmeen inta aan naftayda ku jirto nin kastana uu ila qabaa inta nafta nagu jirto taaka ma ka tarsuleena dalka naga habartayda ka taa waxba dad iyo waxa soo bixinaysa adinka idin taala ugu dambeyntii marka walaalayaal aniga horta waxa waaye in allaale intii dhimatay oo walaalaheen ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala dalkooda ayagoo difaaca jannada Allah geeyo in allaale intii ku dhaawacantana Allah u booga dhayo waxaan idin sheegaa marka mas'uuliyiintii shalay waxaan idin sheegaa wax allaale waxaad aniga shakhsiyan cafisa iga tihiin ilaahay dartiisa idin cafiyo laakiin la ima dhihin aniga xuquuqdaada ma cafi kartid kitaab lagu marin waxa kitaab lagu mariyay dalka iyo dadka iyo diinta inaan difaacayo ayaa kitaab lagu mariyay qaarkiina igu mariyay waliba adinka qaarkiin xukuumadda madaxweyne ka aha kitaabkaas aan maray waa saan u maraan dalkaygan ku difaaca ina adeernimo iyo qaraabanimana in la soo safo ma ina in ka soo safta maahan waxaan idin sheegaa marka walaalayaalow ka waantooba dhaxalka naga dadka nagu haysta Kenya ka waantooba haddaad ka waantoobi diideen kitaabka aan shalay maray waa saan u maray waajibkiisana waa fulaa wallahi waan fulina oo billahi waan fulina oo tala waan fulina inta aniga naf ugu jirto waxaadna cafis ka tihiin wax alla wixii xuquuqana aniga ku lahaa aakhirana ilaahay hortiisa idin cafiyo laakiin dalka iyo dadka u naxa ma ahan aniga inaan saakay aad maaragtay aad istiraahdaan qof kasta oo muwaadin oo Soomaali u naxa ani ha ii naxinina anu adeeg waa u dhashay oo markii aan noqday jeesh markaan noqday aan adeega aan saaxiib la noqday markii aan askari noqday oo ciidan qortaba sideedaba aan adeega saaxiib aan la noqday adeega laakiin shacabka laguma xad gudbi karo ilaaliya waajibka shacabka ilaaliya